وياهي وورد دقيقة وآد وعلوس هذا كان هدورون يهي أو سحيا الحقيقية طبعا دقيقة صوص عضو بقولك بقولوا الحقيقيين دونا برجع لحد أن قاني جبي أهم بوكا قدبني بلايك خلا أو علوس أي فرح على الجلي نيك أضيقة آية الله علي قامني وحليه ميت كيسة آية عندها صارني. That Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, is dead following Israeli strikes against his camp. وها صحافة أي كم تعاشيوس يسدو كله رويترز صحافة واوينات قركيت أي حد بلاودي إن القرآن سدو كله دقيقة كور أحسن وحا هدلي نتنياهو هدلي أو قطبة أما هذا الجيلين سميه وحيابا ويرنا طبعا وحكم إدها إني كأوضيقة أو كوكل سونيا إن لتلي وحال اللي أمرك صحافة إلا هاي ميدك صورك ميدك قامني أي وحالو دري ترامب iyo Netanyahu oo indhihiisa saareen oo wax qiijin leeyin ay asagoo meedkiisa laga soo dhex saarayo gurigii dumay heerkaas yaani saxaafadda horta dhankaas waa Netanyahu iyo Trump iyo saas leeyihiin tan Iran ilaa hadda war sax ah kama heeno laakiin mid ayaa jirto oo aniga toon Ingiliis ninka odaga ah Ayatollah Ali Khamenei caawa waxa qorshahu uu ahaa oo saaka ay noo sheegeen Iran laftirkooda إن هو هذا الجيلين سمين دونه إنه الله هذلي دونه دنيا يعربته إذا كمسلمين تا إذا كخير إيران بإنه الله هذلايو أي نوشاجين حتى واحد صائف بحي أو وزير كميد وزير ده إيران ونوشاجي إن دبلوماسي أما بالجوجي هذا الجيلين تقسم لها عاو قامني تاس طبعا وجهته هذا كان كسر يري نتياهو وميت كي عندها صار نقوليه هاي يقولون ترامب oo ninka waa aragnay meedkiis ay leeyihiin dabcan ama inay beeniyaan ama inay rumeeyaan waxaan ka filanaynaa Iran ayaga kaliya xaqiijin karo in ninka odayga ah la dilay baasha markay halka joogto marka waa la isku baabay maanta dagaalkan oo kala ah bariga dhexe in muddo ah kama dheen Iran waxaa dareentay ama wada aragteen maanta in seefta galka ay kala baxday oo dalal fara badan oo aamusi jiray ama si hoosay ah Mareykan iyo Israa'iil u caawin jiray waxa ka hadlaynaa Sacuudiga oo Kuwait oo Qatar waa Bahrain Dubai waa aragteen caawa tan ka dhacday weligood ma aysan filaynin inay ka dhacayso taas oo ku muujinayso Iran inay caawa aad u xanaaqday dagaalka marka wax dil xaqiijiyo ninka odayga ah ee mas'uulka ah in la dilay ama uu dhintay dil xaqiijiyo bahasha faraha way ka baxday oo dabcan asaga oday 80 iyo wamaza 80 la hijiro ahay dabcan duu meesha ka leexdo waxa jagada qaban doono saraakiisha kale ee asaga ku xigto waa hadii ay run tahay ninka odayga la dilay marka waa sax waa oday ay ku dhaarteen oo supreme leader oo ninka ugu sareeyo talada ugu dambeeyay dalkaas qaadan jiray ama sameyn jiro ahay waxa la aaminsan marka ragga kale ee jagada asaga kala wareegi doon inay ka mayl adag yihiin odayga oo ninka meesha waa ka saartay بلاي كلا سوق ليس مركز دجال حد اللوبة بالله يعني طبعا حد هيركاسي جوكتا أو ميتك وأرجني أي قلة ليهين قلة كلني ولي أمسون تهاي مركز إنك أضيع هذا الجيرين تيسنا ولا كان صلي أو هذا ما هينو مال وكهاد لي دانو لكن حقيقة جنتا طبعا وحفرة وجوتا تذكر إيران وحرب أنا وسوق جبيو مقال هذا أي سي دينا يعني صحافة دقائق مقال كسر جيدان ولا ليه هاي تذكر إيران أسكسوا بحاي عود بالدق وحبس تذكر نعباني كأضيع maalmahan oo mudaharaadkoodii taasna kulay way jirtaa ani waxaan aaminsanahay caawa in arrinkan uu dhinac u dhici doono 100% ogaan doono ninka odaga in la dilay ama inuu nool yahay waqtigan uu sheego waayahay dagaalka uu sii xoogeystay ayadoo gobolka uu dhacay oo afurkii lagu jiro waliba hadda taraawiixdii xilliga la gali lahaa bariga dhexe xaaladiisa aad u sii xumaatay marinka Hormuz oo gabi ahaan xirmay Iran ayaa xirtay arrin culus waaye adiga da kula fududahay muuqaalka bal dhameys ayaa bidoontida maxay la sicir barka Soomaaliya ayaa laga dareemi doonaa berito dhanka shidaalka waxaaba macquul ah bajaajo far badan in la dhigo oo aan la wadi karin sababtuna waa idin sheegaya laakiin caawa sidoo kale duulaanka ama dagaalka socdo Iran istaraatiijiyo cajiib ay ciyaaraysaa waxay Israa'iil ku garaacaysaa gantaalada noocooda hypersonic ah laakiin maadaama Israa'iil difaaca cirka ee isticmaalayso oo Ingiriis hadda dagaalka uu soo galo ka caawinayo Israa'iil dhanka hawada Mareykan uu ka caawinayo dhanka hawada joogada dhanay bedeshay Dubai ha lagu habsaday dhahday Dubai caawa haba ka dhigtay Iran caawa Dubai Burj Khalifa dabaqi ugu dheeraa ee Dubai ku faari jirtay waxa waa Iran
caawa waxay rabtaa haddii ayada saan loo galaayo oo cunaqabateen cunaha laga qabanaayo oo la miijinaayo oo dhiigga laga miiraayo ayadana waxay taagan tahay imaaraad carabow isoo raac waa isla wada gelaynaa godka sacuudi isoo raac dadkaan noolaa ka hadlaynaa ciraaq iyo kuwaas dagaal ay ku jiraan iska dhaaf kuwaydey adigana isoo raac qadarey adigana isoo raac caawa dalalkaas caawa keliya hadda dagaalka sooma socdo waxaan dhamayn xitaa 10 saacadood caawa keliya inta lacag ee ka qasaartay dalalkan hadda idiin soo wado waa sacuudiga waa ciraaqe waa kuweyde ciraaq horta iska saarbo waa kuweyde waa sacuudiga waa qadare waa muxuu ahaa imaaraad carabe waa sidoo kale waxa ku dartaa xitaa ciraaq iyo cumaan xitaa iskaga dar laakiin dalalka qariirada ilfiir horta qariirada ilfiir marinka hormuus markaa maqasho marinka hormuus waxaa arkaysaa shidaalka yar ee hadda kuwait iyo ciraaq laga soo diro meel kale oo ay mari karaan haba yaraatee ma jirto iyaga dhan halkaas baday qabaan marinka hormuus sidoo kale sacuudiga asagoo dhankan badda cas xuduud la leh shidaalkiisa inta badan waxaa laga dhoofiyaa dhankaas iyo marinka hormuus sida uga jeedaan qariirada qadar ayada bad kale oo ma lahaba marinkaas hormuus leeba dhex fadhisaa qadarta lagu sheegayo imaaraad caraba kuu soo haray bootaalihii asagana bad kale maba qababa marinkaas hormuus ahayn awood ay iiraan uga hortagaanna ma qabaan qadar imaaraad carab sacuudi ciraaq iyo kuwait caawa wadadii ay ku neefsan jireen ee dhaqaalaha ka keeni jireen laga xirtay iiraan xiratay gujisadeeda xitaa iiraan caawa warka waxay sheegayaan inay miino ku duugayso dhulkaas almuhim marka waa saacado un keliya isbedelka iyo cabaadka iyo saxmada dhanka dhaqaalaha iyo buuqa iyo sicir bararka isla markii waa la dareemay marka marinka hormuus saameyntaas aadka u balaaran ayuu leeyahay 20% shidaalka dunida la dhoofiyo ayaa dhulkaas maro 20% ilaa ciraaq iyo kuwait iyo sacuudiga iyo qatar iyo imaaraad carab iyo waa aday isku tagaan waa shidaalka dunida intiisa badan waayo dalalkan hadda in soo sheegay isku tagaan meeshaas keliyana waxooda marsiistaan marka hadda isleedahay maxaa marinka hormuus loo hadal haya ma saameyn noocu leeyahay hadda isleedahay that's it waa halka ee mariyaan maraakiibtooda shidaal waa sacuudiye waa migu soo celcelinayna okay ka gudub maraykan wuxuu yidhi asagana war u soo saari maraykan wuxuu taagan yahay cutub ciidamada diyaarinaba oo difaacayo marinka hormuus iiraan ka difaacayo maraykan ale aawahe waaba la xiray baasha haddeertaan inta muuqaalkan duubayo baasha way xiran tahay darooniska iiraan iyo gantaalada iiraan iyo balaayo meesha dhanbu waxaa is leedahay waagii maxkamadaha iyo hogaami kooxyada is haysteen miyaa rasaas dhinac walba u socotaa marinka hormuus marka maraykan wuxuu qaadi doono iyo qaabka uga sifeyn doono iiraanta iyo aragno waayahay niyo dagaalka dhanka maraakiibta weli iiraan ma soo gelin aniga dhan waa yaabanahay ilan waxaa la isdhahayay markay qacda bilaabato iiraan waxay bartilmaameedsanaysaa maraakiibtan waaweyn ee dagaalka ee maraykanka meesha yaallo gantaalay ku tuuraysaa ilaa hadda ma dhicin laakiin dagaalka waa hadda jabtarka koowaad laba ku jirnaaba waxa soo socdo bal aragno waayahay dib noo soo celi dubai caawa waa la yaaban yahay dubai haddaadi gabadha daawanayay oo british ah ingiriiska ka timid meesha dalxiis iyo wax u joogta maxaa ku keenay dubai ee uga caddeed baskiito meesha dhulka iskaga soo kortay oo dagaal iyo waxba arkin hal mar gantaal kor maray hoteelka ee jiiftay ee loo yaqaano palm hotelkan haddaa dubai tagtay hotelkan qasab oo arkaysaa aad u weyn yahay madaxda caalamka iyo dadka kasta haysto aadego caawa 2 daroon oo ku habsatay hotelkii quruxda badnaa saan ahaa saanu noqday hotelka saan ahaa saanu noqday waayahay sheekada meel aad u macaanay maraysaa dagaalku wuxuu u muuqdaa mid bilaaw ah Israa'iil iyo Iiraan hadda si toos ah isku jafaayo Maraykan wuxuu u muuqataa dhaawac gurasho inuu ku jiro goobo military Maraykanku uu leeyahay saldhigyo oo Bahrain iyo meel Dubai u dhow iyo aalaga duqeey Iiraan duqeys kulli wax dhimashay dhaawac aniga ma ogin laakiin wuxuu u muuqataa xogaa gurasho inay jirto iyo qiimeen sida wax yihiin intaas waa intaas dhanka Iiraan ayadana kulli wali sidii noo sheegayeen dad saraakiil dilnay inta ka dhacday laakiin waa arki doonaa meesha ku dambeys laakiin intaas soo korortay marinka hormuus oo Iiraan ay leedahay waa la xiray iyo saameynta ballaaran iyo dagaalkan oo ka ballaartay Iiraan Israa'iil iyo Maraykan dagaalka waxa si toos ah ugu jiro Ingiriis Sacuudi Imaaraat Carab Qatar Bahrain Kuwait war cid dhiman ma jirto bariga dhexe weligiis ma noqonin